waa maasantiin dhammaan saxaafadda meeshan maanta toolo aan nimid hoolkii teendadii waxaan joognaa Afsooni gabi ahaanba teendadii ay doorashada ku socotay saaka xilli hore aan nimid ilaa hadda nolo diiday waxa go'aankaas qaaday oo diiday saxaafaddu u diiday guddiga doorashada loo xil saaray inay tabiyaan heshiiskii 17 Sebtembar waxa ku jirtay saxaafaddu inay qayb ka noqoto wixii ka dhacay doorasho oo dalka isla markaana ay tabiso si sax ah u tabiso in meeshaas cadaalad ay u dhacday in kale maanta saxaafadda loo diiday gudaha in doorasho ka socota iyo in ka socon cid war haysa ma jirto ma garan karno waxa gudaha ka socda waxaana ka dambeeyay guddigii doorashada loo xil saaray waxa guddiga kamid ah oo horboodaya Cabdi Ismaaciil Samatar wuxuu kamid yahay ragga diidan in saxaafadda ay gudaha gasho marka anagu ma garan karno ma taqaan dagaalka intaas leeg oo saxaafadda lagu hayo waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa gudoomiyaha baarlamaanka ee hadda xilka haya mas'uulka dalka u sareeya inuu soo farageliyo dalkan saan doorasho ku dhici mayso saan doorasho lama dhaho wixii la qarinayo wax gooniya laakiin tan doorasho ma aha doorasho waxa la rabaa inay saxaafaddu marqaati ka noqoto wixii meesha ka dhacaya oo bulshada loo tabiyo laakiin haddii qol lagu soo xirto ma dhihi karno doorasho arrimo gooniya ka socda meesha marka waxaan u baaqaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Madoobe inuu soo farageliyo ma aha hadhow in dib laga shalaayo arrintan waa arrin khaldan sharciyan markii loo fiiriyo dastuurka dalka saxaafadda in banaanka lagu celiyo isla markaana la yiraahdo telefishinka qaranka kaliya gudaha galaya oo saxaafadda intii kale dhala TV ba banaanka lagu xiriyaa ha ka dawdan annaga gurigeena TV oo noo yaala Cabdi Ismaaciil Samatar waxaan ku leeyahay guriga TV uu yaala mana haddaan guriga TV oo waa gooni mana aqbalina guddigiina waxaan idin sheegayaa ma aha in Cabdi oo kale kaliis farta ku taago annaga guryaheena dhalooyin TV noo yaala oo weyn waa ka daawan karnaa meesha ciyaar champion kama socoto doorashada dalka waa masiirka ummadda Soomaaliyeed waa ma aha in banaanka lagu celiyo waxaan codsanaynaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu soo farageliyo xildhibaanada banaanka ku maqan musharaxiinta intaba waxaan u sheegayaa meesha musharaxiinta xilka madaxweynaha u taagan ee hadda wali imaan iyo ku jooga waxaan u sheegaynaa meesha waxa ka saxayna doorasho tahay in kale ma xaqiijin karno xildhibaanadana waa u baaqaynaa inay soo farageliyaan gudoomiyaha baarlamaanka barnaamij baan u baaqayaa beesha caalamka dhammaan intii ka soo qayb galaysan oo baaqaya in la soo fargeliyo arrintan saxaafadda banaanka lagu celiyo waa maasantihiin daawadayaal sidaad ka warqabtaan waxa ku suganaanay teendada Afsooni sida saaxiibaday iga horeeyay ay sheegeen saakay subaxii ayaan halkan u soo kalahanay si aan uga qayb qaadano bulshadana ugu soo gudbino waxa halka ka jira saxaafadda banaanka ayaa lagu celiyay in xataa saxaafadda kulligood banaanka ay joogaan waliba saxaafadda qayb kamidana in loo ogolaaday oo saxaafadaha madaxa banaan dibadda ay ku jiraan marka shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddaan aan baahda meediyaha inaan ka warqabin waxa hoolka ka socda aad u maasan musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo 25 sano u dambeysay ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya wuxuu shaqada dawladda ka soo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliye madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqal taagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wada hadallada Somaliland dhameystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxa halku dhig u ah teeda maya taada maya teena ha